munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana laga soo shaqeeyay maamuuskeeda iyo milgaheeda oo lagu qabtay bogcad ballaaran oo ku taala hotel Nasteexo ee magaalada Burco. munaasabadan oo ahayd mid bilan isla markaana boqoran oo lagu dardargelinayo hawlaha u diyaargarowga doorashooyinka madaxtooyada Somaliland oo dhacaya dabayaaqada sanadkani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada Somaliland, maamulka gobolka Togdheer, mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka. munaasabadan ayaa waxaa soo buux dhaafiyay boqolaal ka mid ah haweenweynaha xisbiga kulmiye oo ku labisan calanka muuqa dheer ee xisbiga talada dalka ay kulmiye iyo sawirada murashax Muuse Biixi Cabdi ee ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. waxaana intii munaasabadani socotay lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka kuwaas oo ka turjumayay sida ay haweenweynahani u taageersan yihiin siyaasadda xisbiga kulmiye. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay haweenkii soo qaban qaabiyay munaasabadaasi oo dhammaantoodba si qoto dheer uga warramay barnaamijka xisbiga kulmiye ku maamulay dalka muddadii 7 sano ahayd ee xukunka hayay iyo sida ay u taageersan yihiin xisbiga kulmiye iyo murashax Muuse Biixi Cabdi iyo siyaasadda xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxa leeyahay war ma qabno hadaan nahay xisbiga kulmiye war ma qabno boqolkiiba boqol annagu waan isku filanahay waana ognahay codka kulmiye inuu gobolada Soomaaliland uu yaalo. waxay noo ballana maalinta farta codka lagu ridaayo inaan maxay tolay laan tusno cududayada habeenadaba waxaa halkan aan ka daawanaynay marba dad yar oo meel la soo fadhiisanayo caawa waxaanu halkan ka tusaynaa haddaan nahay haweenka gobolka Togdheer cududayada aan leenahay iyo sida aan xisbigeega kulmiye taageerayaashiisa oo waliba caawa aad iyo aad dabada u tuman iyadoo ay waayeen meel ay kala fadhiistaan. waxaanu leenahay oo aanu u qabanay xafladan waxa la gelayaa waqtigii kaambeynka doorashada ayaa inagu soo wajahan si la isugu wacyigeliyo oo qof walibaalka uu taamayo uga hawlgalo oo la isu dhiirigeliyo iyadoo la ilaalinayo amniga iyo nabadgelyada. waxaan leeyahay dadkii lahaa kulmiye maxaa ku dhacay kulmiye xafladiisii maxaa helay maxaa dhacay miyaydan kaambeyn gareynayna lahaa bal caawa waxarka idinkana waxaad leedahay dhele roob noqon weyda bal indhaha kala qaada oo waxaa eegtaan munaasabadan aadka u ballaaran ee sidaasa inay haween gobolka Togdheer gabigiisuba uu yahay kulmiye ayaan qirayaa. inta badan waxaa helay haweenka maantana waxaan aaminsanahay waxaasoo haweenaa oo iskugu yimid oo hoolka qaadi waayey iyo guryaha jooga intuba maanta inay heelan yihiin inay kulmiye u shaqeeyaan. anigu dhalinyarada la dardaarmaya Togdheerna waan ku ogahay guusha iyo inay dhaliyaan iyo nabadda intaba waa la arkaa cududii Togdheer waa la arkaa haweenweynihii Togdheer waa la arkaa dadka caawa halkan isugu yimid iyo cududda uu kulmiye ku leeyahay. hambalyeynaya taageerada mugga iyo miisaanka leh ee gobolka Togdheer ay u hayaan xisbiga xaakimka kulmiye oo ah kii ay markii horena soo saareen iminkana ay diyaarka u yihiin inay soo saaraan. xisbiga wadani waxaa hortiisa soo taagan kuwii musuqmaasuqa sameeyey ee iyagu hantida qaranka lunsaday ee muddadii kulmiye xilka hayay wasiirada ahaa ee iyagu markii ay ka dhargeen ee ay haruurkoodu buursamay iyagu iskaga dareeray haddana iyada oo wax badan uu kulmiye tixgelinayo ama madaxweynaha qaranku tixgelinayo aanay cidina la xisaabtamin. waxaa la yaab leh iyagiiba intay wajahada isa soo taagaan waxay leeyihiin waxbaa la lunsaday. gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan, gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramaax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada Somaliland, mas'uuliyiin ka tirsan guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa ka markhaati kacay waxqabadka muuqday xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Somaliland ka qabteen dalka iyagoo sidoo kalena u mahadnaqay haweenweynahan soo qaban qaabiyay munaasabadan bilan ee boqoran. aad waxaan idinkaga mahad celinayaa xafladan oo idinku aad soo abaabusheen oo idinku aad diyaar garayseen oo aad garaadkiina ku garateen inaad muujisaan xaflad qiimo iyo qaayo badan leh oo aad xuduudiina ku soo taas waxay muujinaysaa daacadnimada iyo xilkasnimada haweenka gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye iyagoo ah tiirarka xisbiga kulmiye waaweyn ay ka mid yihiin haweenku
waxaan mar kastaba anigu aan aad iyo aad ugu faraxsanahay haweenkan xisbiga kulmiye oo ah kuwa dadaalkoodu aad iyo aad u badan yahay oo mar kasta danaha xisbiga iyo danaha qaranka intaba haya diyaar inay u yihiin inay xisbiga kulmiye mar labaad u footeeyaan una codeeyaan iyo cududoodii baan u filayay inay haweenkan gobolka Togdheer ay sidan iyo si ka sii fiican ay hawsha iyo kaambeynka xisbiga kulmiye ay wadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan haweenweynaha gobolka Togdheer meel kasta ay ka yimaadeen waa kuwa indhuhu ay arkayaan caawa ee horteena fadhiya haweenweynaha xisbiga kulmiye aad iyo aad baan mar labaad iyo saddexaadba iyo salaamayaa kulmiye gobolka Togdheer waxay muujiyeen awoodoodii iyo taageeradoodii ay u hayeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye si kastaba ha ahaatee xisbiga talada dalka haya kulmiye ayaa muddooyinka u dambeeyay si weyn ugu diyaar garoobay doorashooyinka madaxtooyada Somaliland oo dhacaya dabayaaqada sanadkani. Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland Burco.